السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنا ونكسن صاحب الميل والباجوكتان إيو لباسي كستود نوضا ونسان به كسودو هذا برامج كارين كسميني أروسكا غوردو كدعي إن بودلان وطاي قار كميدا إن dhalinyarada ku nool dalkan Switzerland ayaan waxaan mikrofoon kala dhaxmaray su'aalna ku weydiiyay sideed u aragtaa wiilkaas Soomaaliyeed xalfadiisa ama rooskiisa ka dhaxweeyay bal ku soo dhawow marka hore channelka Jama Nimbas waa dhawahay Jama Nimbas ma sha Allah kulliyo hadii ka hadlo ma garan karin ninkaas wixii waxa ku qasbay inuu ooyo maadaama uu guursanay laakiin waxa leeyahay wax ka maqan uu ooyinay wixii I don't know inaas la soo weydiiyo taas wata aad ma santahay bal mar oo waraysi oo siinayay TV-ga Badacas ayuu wuxuu ku sheegay farxadiisa in ay ka badatay oo isceli waay bal adi ahaan miyaad ka oyn lahayd arooskaagi marxaladda arooskaagi xalfadda arooskaagi adigoo wata suudkaaga arooska iyo waliba xaaskaagi adduunka ugu jecleed meesha taagan miyaad oyn lahaydna niyo wallahi ooyin meel taasita la ma garat aroos loo oynayo wiil ay dhimiyeen mid kale tan waxa maqlan kaas inoo reegalkaciyad yahay ay reegalkaciyad kuma ooyan miya reegalkaciyad inta ku ooyanayo saddexniyood argaas qoriyay dambe kaas la soo baaro way wata aad ma santahay qaar kamid ayaan si dhaqaaqaya bal soo dhawaadina waan dhawahay waan ma santahay sida soo dhawaysay kulay arooskaas anigu waan arkay waan daawaday kulay inkastoo dadku reegalkaciyad ka dhahaan maaragtay dad geesiin aan maaragtay naxin waxa way dhishikii iyo qoriga ka soo horeeyay laakiin haddana waxay muujiyaan maartay jacayl iyo waxa way kalgacayl uu qaban buu ooyay ani ahaan waxay ila tahay kulli jacayl uu qabo gabadhiisun buu ooyay iyo maartay farxadda maartay ka badatun buu ooyay waxaas dhig kala oo farxad ma dhig kara aad ma santahay bal hadii su'aashan kugu soo celiyo abi ku dhaaday arooska mid ku leeyahay kulli hadii nin walba wax buu la ooyaa muruga marad la ooydo marad ciid la ooydo mar farxad aad la ooydo ciyaartooyda farxad buu la ooyaan waxay diiday maartay inaan maalka farxadeeda aan ooyo laga yaabaa inaan ooyo wata aad ma santahay bal adiga kaamirada arooska ku hayaan inta soo wadayna ku soo eegaya bal intaas maxaad ku sfayn lahayd والله كل شيء وأد بيادك لكن هذا نوع حوي فرحة iyo waxa way maxabada ku dhaafinaysa oo hinta oo ilmaha wataada ma santahay kaaga madcelinaya sida qurux badan barnaamijka la qayb qaadatay wili waxaan ku gudi jirnaa qaybihii hore aan ku reysanaynay ama mikrofoonka la dhaxmarinay qaar kamid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool dalkan Switzerland hay soo waa dhawa brother ma santahay niyo waxa ka aaminsanaanay arooska meesha ka dhacay wiilka horta uu ooyay waa arkay لكن مهمة ما حد إنه لو فرحتي وحوي نكاس والله العقب كبحثي إلى هبا كل أرته كنت كي أو مهرة يلا سكي خذاني وحلي لتاجي كنت كأن لقي قاضي ورا يران هذا واسك جرنس عنيو أنا أفكر كي وحنا ملي العقد كبحثي مرقدة أصو مجرنس إنه درت دويني وأفكر كي وتهذا ما صنتي فكر كان صيد وينيا لكن مرة واسيق ورئيس بحني كموسن حسين إن العقد كبحث أو جذا الأوينيو بل أدي هانتادي هدي أي أريمهاس كوكود عن أروسك هاجي ميت كوين لهد ما والله كتايمن وين أنيو هذا ما صنداي وقدم بين أروسك هذه وحاشكتين هذا كوين لهين لكن ويل كان سملات هذا أويي أروسكاس قال كعي كدعي بل أديك محدكوس فين الساعة كل بو أفر بيله بني مقرنسا Soomaalidan hadii soo dhaqan baaleen oo afar bi gursadaan marka tan labaadna muurka ama dhig ba ka iman doona haduu ooyay wallahi laakiin waxaan u malaynayaa inuu jacayl ku weysiyo raadu way dhici kartaa inuu jacaylkii laakiin ku weysiyo raadu way dhici kartaa inuu jacaylkii weysiyo laakiin lacag buu badan tahay ninka lacag buu ku weysiyo la taano aad ma santahay wili waxaan ku jirnaa qeybihii ugu dambeeyay aan ku wareysanaynay fikradda ku saabsaneed arooska wiilka Soomaaliyeed taariikhda xusay iyo wiliba baraha bulshada aadka watahay wili waxaan ku gudi jirnay qeybihii ugu dambeeyay ee barnaamijka ku saabsanaa ee arooska aadka loo hadalhayay ee baraha bulshada aadka looga falcelinayay barnaamijkaas oo dhameystiran waxa mahata ka gaadhay noo soo diyaariyay Master CJ ayaan ku dugi doonaa haduu Ilaahay karaal noqdo balse intaan barnaamijka CJ ku wareejinin ayaan jeclaan lahayn in aad si daawataan wiilka qirada la ooynayay aynigood iska eegtayo iska amina amaan mudane
عشقو اسكو ويايو اسئلة شدا أمان مدني أحدي قيدكتين وابكيستيو عروس قلا أمان مدني لمانا اندور جعيل كأدكي كالسوني أبورا أمان مدني أهي نصيبكو انتو وكاري عروس قلا أمان مدني وبحر دينو إسعى الشقيبة الله إليه أمان مدني laba aynigood iska eegtayo iska amina amaan mudane indha cashaqo isku ooyayo is-ilaashada amaan mudane axdigay dhigteen u adkaystayo aroos gala amaan mudane lamana indoora jacaylka adkeey kalsooni abuura amaan mudane ahey nasiibku intuu ekaaday aroos gala amaan mudane ubax urdino iscaash waxaa baraha bulshada aada looga hadalhayaa wiilku ooya xafladii arooskiisa waxay dadka ka doodayaan sababta uu la ilmeeyey iyagoo qaarkoodle wuxuu la ooyay jacayl uu qaba xaaskiisa muuqaal yaroo laga dubay xafladda ayaa lagu arkayay wiilka caruuska oo ilmeynaya inay linta ka tiraysa gabadha caruusada ah waxaa dhif iyo naadir in la arka nin soomaali oo meel fagaaraha ku ilmeynaya farxad uu dareemaya awgeed waxay dadka soomaalida badankood qabaan in ragga soomaalida ay yihiin kuwo calool adag oo qarsado dareenka ay u qabaan xaasaskooda hase yeeshee waxaa taasi beeniyay sadiiq cabdinaasir oo dareenkiisa aansan qarsano xaaskiisa iyo dadkii kasoo qaybgalay xafladda arooskiisa uu muujiyay jacaylka uu qaba xaaskiisa dadka baraha bulshada arrintan aada ayay uga hadalhayaan waan arkay qaar baa si xun u turjumay laakiin qof waliba oo bini aadam oo qalbi leh maalin ayuu ooyaa waxaan la ooyay farxad darteed sida ay qoyskayga uga soo qayb galeen xafladda arooskayga iyo in aan hantiyay qofkan dunida ugu jeclaa ayuu yidhi sadiiq cabdinaasir oo warbaahinta la hadlayay waxay ahayd habeen xasuus ku reebtay dadka kasoo jeeda gobolka mudug oo arrintan siyaabo kala duwan uga falceliyay qaarkood ayaaba waxay aaminsan yihiin in reer mudugu ay yihiin dad aansan lagu ogeyn calool jileeca noocan oo kale ah wiilka wuxuu la ooyay farxad uu u qaba xaaskiisa laakiin waxay ahayd inuu qarsado oo marka ay isu soo harhaan uu u muujiyo jacaylkiisa reer muduga laguma ogeyn calool jileeca noocan oo kale ah ayuu yidhi cabdirasaaq dhiilood oo garawa jooga qaar ayaa aaminsan intani tusaale u noqon karta ragga soomaalida ee qarsada jacaylka ay u qabaan xaasaskooga waxaan ka aaminsanahay arrintan hadalhaynta dhalisa ee sidiiq cabdinaasir uu ooyey xilligii aqalgalka inay ku keentay jacayl uu u qaba xaaskiisa waxayna ahayd dareen geesnimo iyo kalsooni leh ee uu muujiyey noloshiisa cusub wuxuuna ragga soomaaliyeed u noqday tusaale ayuu yidhi cabdi cambuulo oo ka mid ah dadka iyagu aaminsan in jacayl dartii loo ooyi karo wuxuuna intaas kusii daray in isaguba uu samayn lahaa haddii uu ahaan lahaa sadiiq cabdinaasir waxaa warkale idinla socodsiinaya anigoo ah cabdiwaab jaamac cabdisalaan c j